بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآليال إلهي سبحانه وتعالى ما هتسكله أنت كذب وحان ربينا لما يستركوا وحالي قفك مسلم كأوبنان دور قضبة يقدر منا حلقة دي هره حيالها وقفك مسلم كأوبنان وحكمده محل هذا ما ركتي معجون الأسنان الكها دودا لو عضيده قفك وأوبنان إنه قاعد رمضان كالأحديثة سوى صومن، لكن ينبغي الحذر وحاول من نفاذه إلى الحلق. لكن وحلو بهي هي إنه كتحذر وكدداله قفكو إنه يسمى ركتي حلق يصير دون سيسن وقدبين وما ركتي وآدي تحذر أي لو بهي، لأن عبادة وحلو عيار كرماها ووح بها قف عبادة يصير آدي أدو تحذره تحذر بدن إنه موتشيو ما ركتي ددال بدن إنه قليو وحاول أن قفكو عبادة يصير عيار كرو كل اللي كرماها marka wixii asoo ku banaan hadana inaad taxadar muujiso maartay wixii dib ku keeni kara inaad ka ilaasho cibaadada loo baahan marka macjuun asnaanku way ku banaan tahay laakiin waa inuu taxadar qofku muujiyo hadii marka hore uu ku soo qaadahay cadagay ku santahay laqiya iyo in yar ku tagtay iyo midna arrimahaas oo dhan say u dhicin inuu qofku maartay uu taxadar sila uu maartay oo wacayda ayaa loo baahan yahay arinta ayadaana waxa ku tagay maartay majmuuc fiqh islaami ayaa arintaas maartay ku tagay arinta ayada inay banaan tahay qiyaasan ala siwaaka iyo qiyaas qaadanaya caday sidoo kale Sheikh Ibn Baaz Sheikh Uthaymeen iyo fatawadkooda iyagana arinta ayada way baneeyeen inay maartay wax dhib aysan lahayn waxyaalaha iyagana qofka soon ku banaan waxa kamid ah wax la yiraahdo iktixaal yaani ila kuusha qofku inuu kuulan karo ramadaanka dhaxdiisa ayadana waxyaalaha u banaan bay kamid tahay وأنا مذهب حنفية والشافعية وقول طائفة من السلف. حنفية الشافعية قول كوح بدن أو سلف كمدة أي أرنتها كتير وقول محاويا هو قول داود واختاروا ابن التيمية والشوكاني وحيو ابن باز وابن عثيمين والباني كل أي دورتين ويو إنه قفك مارتي أوبنان تهي أسوأ صوما إنه نقول مرسن كرو واحد من رئيسون كيس أوكينين محايا لي waxay leeyihiin ishu ma aha manfado caloosh u duleela manfad caloosh u duleela ma aha bay leeyihiin marka culimadaas oo dhan oo kuwa hore iyo kuwa hadaaba marka waxa weeyaan culimadaas oo dhan baa ku tagay waa arrin marka waxa weeyaan u banaan weeyo qofka muslimka ee sooman arrinta ayada arrin u banaan weeyo waxyaalaha kale ramadaanka qofku banaan waxa kamid ah isticmaalu qidratil ayn dawadan isha lagu tafqiyo qofku inuu isticmaalo ramadaanka way u banaanta maxaa yeelay waxa la qidratul ayni waxa weeyaan waxaan arintaas culimo badan baa ku tagtay waxayna leeyihiin qidratul aynku waxa weeyaan waa wax aad u yar hal dhibic weey inta badan ish waxay qaadaa yar ish qofka bilaadankiisa waxay qaado aad u yarta marka madaahib badan waa ku tageen xanafiye shaafiiciye iyo maaragtay ibn Baaz iyo ibn Uthaymeen culimo badan waa ku tageen sidoo kalena waxa leeyahay ish waxay qaadaa yar waa hal dhibic ama wax lamid ah waxay qaado ish weeyaan waxyaalaha intaas kale la egna waxyaalaha waxay kamid tahay dhowr qowl bay arrin bay sheegeen midda koowaad waxay dhaheen waxay lamid tahay waxyaalaha la cafiyay bay ka sii yar tahayba sida luqluqashada qof markuu luqluqdo waxyaalaha yar afkiisa ku haraaya ee la cafiyay oo kale ayay maaragtay ayay ka sii yar tahay waa mid labaad waxay leeyihiin markay sii socoto waxa weeyaan tamtasu hadii alqitratu waxa weeyaan manaadiqan maartay maskaxdiisa meelaha sii marayso ayaaba dhuuqaysa intii yareeyo ku baaba'aysa marka ma gaarayso meel dheer ma sii gaarayso kadib haddana waxay tagaysaa manaadiq tadawuq lisaan arabkii dhadhankiisa bay gaaraysaa arinta ayada ah kama qarara dalika ba'd al-adibaa dhaqaatiirta qaarkood say sheegeen marka waxa weeyaan meelahaas iska baaba'aysa wax alool gaarahay ma la leeyahay saadarteed way iska banaan tahay maartay arinta ayada oo marka koobaad wixii wax yar ah oo maartay isha ay qaadaysa yar tahay oo wali waxyaalaha la cafiyo ka sii yar sida luqashada kale wixii loo cafiyo ka sii yar wixii afka ku haray luqashada ka sii yar iyo ayadoo meelo badan sii maraysa meelaha ayagoona ay dhuuqahayaan
waxa weeyaan qofkaas waxa weeyaan wax gaarahaya gudaha gaarahaya yar kadibna meesha wax lagu dhaminayay bay carabkii bay gaaraysaa marka wixii meeshaas ku tirtirmaya wax maartay soon afurnaysa malaha saasay leeyihiin waxyaalaha ayana soonka maartay aan qofka waxba yeelinin culimadu sheegan waxa kamid isticmaalu qidrat al-udun waxyaalaha dhagta lagu tifkiyo ayagana وإليه مارتي يباح للصائم استعمال قدرة الأذن هو قول ابن حزم بن عثيمين بن باز يا غير كود أيا كنت جاي بحين الليهين أو ضمبينتي ليس منفذا دكتو لأن الأذن ليس منفذا لطعام ولا شراب معها دكتو مال وحلقة عنا مال وحلقة عبنا معها مركا وحويان صونكي وحوم يليس مارت دور طبعا كقضب حلقة هورية تنبأ عن كل أجنبي waxyaalaha waxay kamid tahay qofka muslimka oo banaan hadana iyada oo banaan tahay qofka muslimka waxa loo baahan yahay taxadar badan inuu sameeyo oo maartay soonkiisi uu ka taxadaro oo aad ugu dadaalo cibaadadu dadaal badan bay u baahan tahay falitaankeedu iyo sameynteedu say dadaal ugu baahan tahay iyo hadana ilaalinteeda iyo inaysan ka halaabin inaysan maartay wax khalla ka soo dhaxgelin dadaal kale oo dheeraad labaad bay u baahan tahay marka qofku intuu dadaali karo cibaadadiisa inuu ku dadaalo ayaa loo baahan yahay wax maartay lagu khamaari kara maaha qofka muslimka cibaadadiisa maaha waxaan ku soo khatimaynaa xalqadan soonkii maadaama aan soo wadnay oo luqadiisii istilaaxiisii iyo shuruudiisii iyo arkaantiisii aan soo wadnay iyo fadaa'ishiisii iyo fawaa'idiisii iyo khasaa'istiisii iyo maartay wixii banaan qofka u banaan iyo waxaan u banaanayn muharramaadkiisii iyo makruuhaadkiisii wixii kalena ilaahay naga gaarsiin sunanta iyo maartay aan dhamaystiri doono iyo waxyaalaha qofka maartay afuriso asagana aan si fiican oo maartay taxan ee nooga hadlin waxaan ku soo dhamaystirayaa arkaanta ramadaanka la sheego waa laba qodob labada qodob waa al-imsaaku ama an-niyatu wal-imsaak iyo afxidasho marka qodobka waxaan ugu soo darayaa maadaama ramadaanka laga yaabo inuu ama bari dambe noqdo ama bari dambe waa niyadu wax muhiim ah loo baahan yahay marka qofka muslimka waxa loo baahan yahay oo arkaantii ramadaankana kamida inuu niyad la imaado niyadan habeenkaas uu bariisiyo baa loo baahan yahay waana arinta ay maartay jumhuur ulama ay qaateen غير المالكيه markii laga soo reebo inuu qofku soonkiisu habeen kasta inuu bariyo haduu san bariinina inuu maartay soonkiisu waxba ka jiro markuu leeyahay inuu bariyo ama fiidka hore haniyoodo ama habeenbarkii haniyoodo ama maartay fajrka maartay suxuurta markay tahaniyoodo almuhiim waxa weeyaan intaan fajrka labaad la gaarin inuu niyoodo ayaa loo baahan yahay haduu san niyoonin oo qofku habeen kasta uu san ramadaankaas uu san niyoonin inuu soomahay bari uu san niyoonin soonkiisa waxa kama jiraan ayadoo maartay jumhuur ulama ay saaleeyeen hadana xadiidkii safiya waad garanaysaa nabi sallallahu alayhi wasallam uu lahaa qofkii aan soonka bariinin soon oo ma jiro qofka niyada bariinin afwan qofka aan niyada bariinin soon oo ma jiro marka waxa loo baahan yahay qofka muslimka inuu niyada ku dadaalo cibaadooyinka oo dhanna maartay niyad waa laga maarmaa inama al-amal binniyat wa inama likulli imam nawa cibaado kasto qofka muslimka uu sameeynayo niyad looga baahan yahay muqdam al-ibadat waxa looga baahan niyad looga baahan yahay ramadaanku marka waxyaalaha u muhiimsanaayo arkaan islaamka mid buu kamid yahay oo maartay cibaadooyinka waaweyn buu kamid yahay marka waxa weeyaan niyad waa laga maarmaan qowlka maalikiyada oo ileeyihiin habeenka koowaad baad niyoonaysaa kadibna habeenkaas kugu filan wax kale oo dambe lagaaga baahan yahay male waa qowl tabar daran weeyaan oo la cuskan karin weey maxay yahay xadiis ba meesha yaala oo hadalkii culimadii waxa dhanba ka horeeya oo meesha yaala maartay qof aan niyada bariinin maartay soon oo ma jiro jumhuur ulama oo dhan wadaasay mareen kuwa hore iyo kuwa dambaba marka waxa loo baahan yahay qofka muslimka inuu maartay niyada ku dadaalo oo uu niyeysto markaan leeyahay inuu niyeysto sidii bariyi hore markaan yaryareen aan maqli jiray oo nawaytu sooma ramadaana qadin adaan wixii awaan loo bahda dhii jiray la tirin jiray hadda ma xusuusto looma baahno qofku wuxuu niyoonayaa inuu bari soomahay niyoonayaa saan hor u sheegnay ama gelinka hore ama gelinka dhaxa ama aroorti ama maxaan jeedaa maartay qaybta dambe habeenkii intuu mid kurniyoon baa haniyoodo waxa la rabaa intaan la gaarin fajr thani intaan la gaadho fajr thani intaan la gaarin qofku waxa weeyaan inuu niyoodo ayaa laga maarmaan soonka sunnada
نية الآن قف وسومي كرا وحس إسكن نيون كرا معلمة كم نيون كرا وحاول هدوس أرورت وحنين مرة على مركي وقو أنصد إنه الصوم أيو إسكن نيون كرا مركز صون كسنة دعاء بابك سوا بابك لكن صون كان رمضان كان ما أنت كهذا إنه هذا نوصل آدم إنجيل إنه وحلو بهين قف نية لو بهين هاي نية دا وإنه كتلقله سي مارت صون كيسو ونقضه صون مرة ونقضه لو جانا أقبله أديك كلا وحاول يعني عنتدي يجاتشون بسكود لي وحوينا صون كيس مارت لما أقبلها يبا لأن صونك ما أصحن صونك ما أقبل بكوك هذه أقبل إلهي بهايا لكن ما أصحن بقى صونك ما أصحن مركن يدو أن نقول داله قضب كلا بعد ركن يكمل مارت أركانته مارت رمضانك وإمساك قفك إنه مارت أفايستو من مارت فجر كلا قبل الله مارت طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس إنه كأفايستو جميع المفترات واحد كستو قفك مارت أفرن لها أما هنقض واحد لعنه أما هنقض مارت جماعي وحل لمذا واحد كستو قفك سون كس أفرن لها وإنه إسكيل عليه ويان وقضب كلا بعد مارت وأركانته كمل marka dardaarnka u dambeeyay kelimada ku soo goobinay waxay tahay horey baan u soo sheegnay in carabka la ilaaliyo war labaad baan ku celinaynaa qof kasta oo carabkaada ilaali xubnahaada ilaali maskaxdaada ilaali kulligood waa mas'uuliyad ku saaran soonkaadina waxbay u dhimahayaan qiimihii bay ka qaadahayaan ajirkii bay ka qaadahayaan waxa weeyaan nabi sallallahu alayhi wasallam lam yada' qawla zuri wal amal bihi wal jahli falaysa lillahi hajatun min hadith waqi'aha nabi alayhi salatu qudsi ولا النبي صلى الله عليه وسلم قفك هدوسا iska reebin xumaanta iyo hadalka xun iyo ku camal falkooda iyo jaahilnimada dad kale oo ku jaahil sameeyo haduusan qofku ka harin waxa weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala cuntadiisii cabitaan qofku iska day wax dan oo kale mal marka walaalayaal waxaan naftayni u dardaarmahayaa inaan ku dadaalo soonkan inagoo diyaarsan oo nafsiyan iyo aqliyan iyo maartay si kastaba ugu diyaarsan oo waqtigeena maartay waqti siinay oo waqtigeena kala maartay kala shaandhaynay waqti fiican ugu talagalay saan cibaado adkaar quraan akhris i'tikaaf taraawih tahajjud maartay soonka maalintii saan u galin lahayn inaan ku talagalno ayaa loo baahan yahay waxa weeyaan halkaas ku soo gabagabeynayaa maanta ilaahay subhanahu wa ta'ala hanaga dhigo kuwii nabad soonka ku gaara hal maalin hadda nooga dhiman tahay kuwii ku guuleystana ilaahay hanaga dhigo kuwii laga aqbalna allah hanaga dhigo ilaahay subhanahu wa ta'ala meel kasto joogan muslimiinta iyo ehelka iyo dhammaan asxaabtana ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigoodii dambigoodii allah dhaafo waxa way al ahyaa minhum wal amwaat wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh